bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay shirkado si gaar ah loo leeyahay isla markaasina jaraya laamiyada waaweyn ee halbowlaha u ah gobolka Togdheer dalkeena hooyo mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ku dhaqan magaalada Burco ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen khatarta ay ku hayaan gaadiidka iyo socodka bulshada laamiyada ay jarayaan shirkadaha sida gaarka loo leeyahay waxaana yiraahdeen wadooyin garantiin tacab badan baa galay adduunyada waxa dhulka jeexjeexay oo baabiyay shirkadaha dhiig miiratada adeebnad laamiyada naga jeexay hantida maguuraanka ee qaranka ka dhaxeeya ee ay ka danaysanayaan halkaas dhex marnay asaasi ka tagay dii la hagaajin wax dhammaan lahayd waa mid baa noqday Allah باور تحت أو كل ما تحت إلهي قبل ما يكون بس تبعيد دين الإسلام كم هو tuumbada sun loo soo tilmaamayo in lambar yeelata laga hoostiisiya laakiin barmeeshani mankayaga waa la jaray waa laga tagay sanqadha gawaadhida oo in markay marayso waad naxaysa haddaanu nahay dalkeena hooye waxaanu isu taagnay inaanu wax allaaliyaala wixii ku saabsan danteena guud iyo dalkeena hooyo qurxintiisa iyo faydhowrkiisa inaanu ka hadalno waxna ka nidhaahno waxaanu maanta ka leenahay dadka tacadiyada ku haya wadooyinka in laga qabto haddaanu nahay gaadiidleyda in laga qabto ayaan xaq u leenahay waanan ku dhibanahay maalin walbana waxbaan burbaa nagaga jabto baawurdan nahay gaadiidleyda shirkado gaar ah oo dadka ka ganacsada laakiin saan ganacsigooda ku soo celin oo dhigmirataan u naqaano in ay wadada jaraan habeenkii markay tahay 1:00 habeenimo barnaamijkani oo dhameystiran waxaad kala socon doontaan dalkeena hooyo 11 bisha tobnaad maalin salaasaa 4 galabnimo isla markaasina aanu idin soo wadaagi doonaa muuqaalka iyo waraysiyadaas oo dhameystiran mar kasta iyo meel kasta ku xidhnow dalkeena hooyo